وفيلم داها كرغية شخصية يقفك وياهي مرشحة مدحوينة حسبك كلمية موسى بيحي عبدي. xusuusta loo yeesho qofku waayihii uu soo maray waxay bilaamataa marka uu dibadda uga soo baxo guriga waalidkii iyo muska reerka ee uu bilaabo malcaabada quraanka iyo waxbarashada dugsiyada. haddaba murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi shakhsi caynkeeya ayuu ahaa ardaynimadiisii. muuse biixi waxaan isbaranay beri imika aan isleeyahay de way aad bay u durugsan tahay waqti aan ku qiyaaso ilaa 62kii iyadoo aan ku jiray iskuulka elementary-ga biyo dhacay oo arday la yahay elementary ku jirta markii dambe aan wada galay dugsiga dhexe biyo dhacay ilaa waqtiga waan garanayaa aanay dhalinyarada ama ururkii ardayda 1966 iyo 67 baan waxaan xusuusnay inuu dee ragii aad u hor socday inuu ahaa muuse biixi cabdi 66kii ayaa sukaayo horeysay waqtigaasoo aanu isugu nimi dugsiga sare mud ee maanta jaamacadda ah waxaana la geyn jiray ardayda wanaagsan ee eeda iyo biida geena wuxuu ahaa nin xagga tacliinta aad ugu fiican de waqtigan saan idin sheegay ardayda xulkaaba ima jirtay hadiya gooraalena wuxuu ahaa nin dadaal badan wax akhris badan dooni jiray waxaa lagu tartami jiray position 30 class 2 class baan ahayn oo mi 30 classkii walba 6 inan ee u sareeya ayaa free laga dhigi jiray bas halkaas loo kala dagaalami jiray ragga aan laga qaadin buu ahaa positionkaas muuse bariya galbeed baa dadku waxa la isku jiray laba gobol baa wadanku markaa ahaa burco iyo hargeysa muuse markaa wuxuu ahaa nin ardayda doona inuu isku keeno oo arintaa ka dhex saaro taasi waxay dhaxal siisay inuu muuse noqdo gudoomiyaha executive committee-ga iskuulka gudida iskuulka ay leedahay gudoomiyahooda uu noqdo. marka la dooranayo hogaamiye bulsho madaxweyne dal iyo mas'uul sare xubnaha u tartamaya waxa lagu kala xulaa oo lagu kala doortaa arrimo fara badan oo ay ku kala wanaagsan yihiin. haddaba murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi muxuu dheeryahay ragga la tartamaya. hadal waa kii markhaati leh culimada waaweyn ee ku xeel dheer diinta waayeelka ugu daaweyn dalka aqoon-yahanka halgamayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada iyo haldoorka jamhuuriyadda Soomaaliland maxay ka sheegeen murashax muuse biixi cabdi kasoo xorantii dalka door intee leeg ayuu ka soo qaatay nabadeyntii iyo dhismihii dawladnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland. si kalsooni leh u oran kara inuu yahay murashax waayaaraga oo leh tayo hogaaminimo oo magac maamuus iyo miisaanba ku leh gobolka Geeska Afrika. muuse waa horta nin sariix ah oo hadal cadcad ee weeyi dadkana aan kula macaamuloonin munaafaqad aan kula macaamuloonin wixii runta ay la tahay sheego waa sida iyo sida hadduu toosan yahay wadni waa toosan tahay hadduu qaldan yahay wadni waa qaldan tahay joogsay horta asalkiisa dabeecadiisa anigu aan ku aqaan horta qofku dadka ku yaqaano ee wadciga jira u yaqaano iyo duruufaha taagan u yaqaano waa ninka yani lagu kalsooni gaar ayaa lagu qabaa. waxa kale oo mudan oo anigu aad ula socda wasiirka arrimaha gudaha loo magacaabay wuxuu yiri mar hadii xil la magacaabay wadanka waa inuu ku soo wada wareegaa buuri wuxuu ka bilaabay awdal buu ka bilaabay 45 maalmood ama 2 bilood ayuu geerisay dhex fadhiyay. ayuusha kolka la gano midba tuur bay u baahdaan annakii gadibsigu midba tuur yaan joogo ninkii geerisay isku ka yeeray qoriga dhulka dhigay qafiska ka saaray hore ee rasaastu ku jirto toortooraa ka soo baxshay noox gobol xaare gacan qaadsiiyey raartaba aragiisa
indhaha ma ahayn dhegahoon maqla ma ahayn aragga shadaaba igu horeysa 45 maalmood wuxuu u kuur galay nolosha iyo wadciga yaalay gobolka awdal oo beelaha qaarkood colaado ay ka dhaxeeyeen aad iyo aad buu u dejiyey gacantuu isku saaray dhalaartii intii ka dambaysa dagaal kama dhicin dhalaartii intii ka dambaysa uuna kala habeeyey gacantuu isku kaya saaray gogol buuna wala fariisiiyey cashuuna wala siiyey hadallo taariikhi oo qiimo leh ayuu ka tagoon ka xusuusanahay dalku awdal dal ballaaran weeyaan dadka deganna dalku wuu ku filan yahay khayraadkiisa badda iyo beriba hadday tahay nabad buu idinku leeqaanayaa dalku nabad ku wada noolaada nin muddo kara meesha uu maraba oo shaqeeya weeye darajo qaadi kara Muuse Biixi haddii halkana la yimi oo la shaqeeyey oo nabadda laga shaqaynayo koow buu ka yahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dib u heshiisiintii qayb wanaagsan buu ka qaatay hubdhigistii iyo abaabulka saarkii qayb wanaagsan buu ka qaatay dhismayaashii ciidamada qaranka muuse soo ka mid ah saraakiishii dee hawsha waday allah u naxariistee annagoo wada joogna sheekh axmed sheekh nuux yaa wuxuu sheekh axmed noo sheegay uu yidhi aniga muuse ii yimiday buu yidhi muuse biixi cabdi baa ii yimiday wuxuu yidhi magaaladii waan ka soo baxnay awood dambe oon haynaana ma jirto odayaashii inaad israadsataan baan doonaynaa oo dee arrin wixii la yeelayo aad isweydiisaan sidaasaan anu ku dhaqaaqay buu yidhi markaa aan sheekh ibraahim ugu tegey buu yidhi aniga sheekh ibraahim baan israacnay buu yidhi cabdiwaraa baan u tagnay buu yidhi sidaasaa shirka cabdiroosh ee guurtida beeshan dhexe lagu aasaasay asaaska guurtida koow buu ka ahaa muuse waa waxyaabahan ku ictiraafayba ka mid ahay wuxuu muujiyey karti buu muujiyey iyo daacadnimo ayuu muujiyey wuxuu ka bilaabay inuu isku xidho gobolladii iyo degmooyinka oo isagu xidho oo dhismihii xagga booliska nabadgelyada uu dhiso in maxay ahayd ciidamadii booliska ahaa ee gaargaar ciidamadii beeleedka ahaan jiray gaargaarka ahaa inuu ciidamadii booliska dhiskiisii uu ku horreysiiyey arrimahaasi aad buu nabadda wax noogala qabtay odaydii guurta ugu firfircoona hadda anigu aan ka mid ahay xogogaalka ahaa ee sheekh ibraahim au maxay hayday uu hogaaminayey wasiirka keliyahe wuxuu ahaa si aadan noola shaqayn jiray ayuu ka mid ahaa goor walbana odayada la soo xidhiidhi jiray noogana warrami jiray gobol walba marxaladda u marayana warbixin gaara naga siin jiray annaguna aad baan wixii tala aan siinaynay isna waa naga qaadan jiray taladayada muuse biixi aqoon dheer baanu leeyahay nin qaban kara weeye nin qaadi kara weeye muuse ninkii codka siiyaa ku khasaari maayo siyaasaddu waa inaad dad iyo dal taqaana hadaadan dadkaba garanayn dee maxaad xukumi yaa maile dukaan iibin mayside qofka siyaasad doonaya inuu noqdo waa inuu dadka yaqaanaa qabaa'ilka yaqaanaa dhaqankooda yaqaanaa yaa markaas unbuu qofku fahmi karaa xitaa dhibaatooyinka qabaa'ilka iyo dadka dhex yaalla iyo cuqadka dhex yaalla hadduu dadka kala yaqaano marka muuse wafdi oo hogaaminayo waxay noogu yimaadeen laasacaanood waa markaa iyagu gaadhsiiyeen dadkii qabaa'ilka xubnaha laga rabo muuse wuxuu raggii halkaa ka soo kaxeeyey anigu waxaan ku kulannay markaa adhacadde aan xitaa casuumad ugu samaynay boorame waagaan tagnay laasacaanood baan ka tagnay dhulka waa lama mari karaynin diyaarad baan ku tagnay halkan boorame ilaa hargeysa intaasoo control oo boqolaaloo xaddaafa ayaa yaalay muuse runtii wuxuu ahaa wasiir daakhili aada u adag wakti adag bay ahayd waa dowladdaas waxaa la odhan karaa waa asaaskii somalilan bay ahayd muuse wuxuu leeyay geela waxaa loogu haysaa ninna dhereg buu kugu dhex joogaa ninna dhalashuu kugu dhabasho dadka somalilan iyo dhibtii loo soo maray iyo lixejecladeedu meel kagan wada taala san anigu qabo aanu cidna caayn cidna meel kaga dhacayn kan waxaan leeyahay waa in lais dheeryahay intaasuu laga dheeriy mar kale bal aynu aragno labeenta bulshadu maxay ka yidhaahdeen hoggaaminta murashax muuse biixi cabdi iyo go'aan qaadashadiisa waxaan aaminsanahay inuu yahay hogaamiye ummadda somaliland isku wadi karaa
halkaana ka sii ambaqaadi kara hogaaminta qarannimada somalilan iyo himilada xisbiga kulmiye iyadoo horumarka uu dalkeenu u baahan yahay. muddadii dheereed ee 30 sano ka badnayd ee aanu soo wada shaqaynaynay waxaa ii sheegayaa xilligii xisbigu ku soo boogooyinka SNM inuu wax weyn ku kordhiyey garabka military ee ururka. hogaamiye noqon maysid haddaad yeelan weydo karti iyo awood go-aan qaaday. qofku hadduu askariya ma hogaamin karaa wax dee waxaan isleeyahay isagaaba cid walba kaga hogaamin fiican, waayo waa qof ummadu soo taliyey ya dad kala dhaqana kala quality ayuu soo xukuma. ninku markuu askari soo galo wuxuu doortay wadadii raganimada bay yidhaahdaan. marka uu sarkaal noqdana wuxuu noqdaa hogaamiyihii bulshada maaha oo keliya ciidanka. ciidamada ninka sarkaalka ah waa hogaamiye. halla wixii maraykan soo xukumay iisan awar kaga bilow. halla wixii maraykan madaxweyne ka soo noqday askar bay ahaan jenaraalo midhan bay ahaan. ninka askariga ahay go-aan baa laga doonayaa uu qaato. xaalado adag baa la soo gudboonaanaya, go-aan qaadasha laga doonayaa. marka u dambaysa cidda wax laga sugayaa ee wax ku soo ururayaan markaasay ku soo ururayaan, qofka u dambeeya ku soo ururayaan weeyaan. hadduu qofkii u dambeeya go-aan yeelan waayo uu iska dhigto uu dha arrinku waa iska xaliilmo maxaa dhacaya? ku hurdaa la doonayaa oo miiska ku dul seexdaa. miis ku dul seexda looma baahnee ku soo jeedo go-aankiisa. fa idaa casamta fatawakal. markuu la tashi sameeyo qofku wixii xaqa ku dhawaaqa oo ku dhaqaaqa la doonayaa. hadday birka adag tahay dadka danahooga waa la horseedaa, waa la isku duwaa. marka wixii maslaxad loo arko lagama laabto. waxaan u arkayaa anugu nin maslaxadda ummadda wuxuu ku qanco aan ka laabanaynin. ka loo baahan yahayna waa kaa. waxaan arkay inuu yahay muuse biixi qof haddii aad tala meel iska dhigtaan oo aad isla fahamtaan qowlkiisu miisaan leeyahay oo berita wax kale oo dhan kale u jeeda aan kuula imanayn ayaan ilaa imika ku arkay. go-aan qaadashadu geesinimo ay u baahan tahay. waxaa laga yaaba dadka qaar inay la yaabaan oo ay yidhaahdaan go-aan qaadashaa geesinimo u baahan oo dee geesinimada ay u yaqaaniin inuun madfac iyo miino la isu dhigay iyo waxaynkaas. laakiin ta haddaad kubad ciyaarayso oo aad eriyada goolkulaadka la gasho plenty eriyada adoo kubaddii wataa go-aan qaadashaad u baahan tahay. miyaad ku laadaa goolka? ma mid kaa dambeeyaad u dhigtaa? ma miligtaad u dhigtaa? ma bidixdaad u dhigtaa? yacni dadkan daawanaya kubaddu mid waliba wuxuu leeyahay muu midigta u dhigo, muu bidixda u dhigo, muu dib u dhigo. tababarahaagii saasuu leeyahay. markaa dee haddaad garan weydo meelaad iyo si aad tiraahdood go-aanba qaadan weydo dee waa laga qaadaya kubadda. marka arrin kasta oo noloshiiba wuxuu u baahan yahay go-aan qaadasho. go-aan qaadashadaasina waxay u baahan tahay kudhac iyo geesinimo aad hadhow u badrheedho wixii ka yimaada oo aad daafacdo oo dee haddii uu meelmar noqdona meelmar noqoy, haddii kalena aad u diyaar garowdo in sidii loo sixi karo. laakiin te haddaad ka cararto dee meel la gaari maysid. nin warkiisu cad yahay ayaa muuse ku xusi karaa. nin aftahanu markuu hadlayo dadku ay isku soo taagaanna waan ku xusi karaa. tala qaadashadiisu iyo go-aan qaadashadiisa iyo hogaamintiisuba waa nin ku adag qaadashada inuu go-aan qaadan karo xataa hadduu aada u adag yahay oo markay dhahrato ama adkaato. ya waa qofka runtii qof lagu ciiri jiray xisbiga gudihiisa buu ahaa oo go-aan qaadashadiisu ay strong ahayd. aniga beersanani markaan hadlo wuxuu igaga duwan yahay. somaliland waxay u baahan tahay qof maya leh, qof maya leh oo ka daalana maanta muusan ogahay. this way aanu doortay, this way uga duwan yahay, this way aan jeclahay in loo doorto. go-aan qaadashadan waa very important. aad iyo aad bay uga mid tahay maxaan ku leeyahay tiirarka hogaamiyaha wanaagsan lagu garto inuu go-aan qaato. go-aan qaadashada number 1 iyo nin wax diidi kara wax la yeeli karaa. qof oran kara qabyaaladda iga daa, qof oran kara waxa nationalka adaa, qof oran kara waxa suwaaxu yihiin bal muuse uu ogahay inuu yahay qof maxaan ku rahay runtii
hogaamiye noqon karaa inuu yahay maxaan ku dhahay wakti badan su-aalahan isweydiye waxaa ka mid ah muuse isagoo wuxuu dhashay 1948 1985kiina wuxuu tegey maxaan ku dhahay isagoo sarkaal oo yaroo garmaleyta ah oo haddii labaedkii leeyahay dunidu cusub tahay oo maraykan ka yimi ayuu intuu abudabi ka soo raacay diyaarad maraykan ka soo goostay oo xamar madax ka ah sarkaalka ah wax askarta laga jeclaan jiray ma jirin ayuu jabhaddii ku biiray oo maxaan ku dhahay hawdkii tegey waxaan islahaa aniga markay raacisay wey moogta waxaan dhahaa ninkaas hadduu lacag doonay maraykan buu joogi laha ama sacuudigu tegi laha ama dee baaxushari buu noqon laha waxbarasho waxaa la yidhi qofka markayda ma taqaan jid ma la martay jabad ma la digtay jidiinse ma la quudatay saddexdiiba waa yeelanay muuse biix cabdi waa nin horta dhaqan leh muuse biix cabdi adduunkana dhaqanka qofku waxa ugu horeeya lagu qiimaya waa dhaqanka dhaqan buu leeyahay waa nin xishooda waa nin dulqaad leh muuse biix cabdi waa nin musuqa necab muuse biixi cabdi saan ku bartay waa nin cadaaladda jecel muuse biixi cabdi waa nin ballan hadduu kula qaato aan ballanta ka bixin ee fuliyo ballanta muuse biixi cabdi waa nin runta ku go-a hadday ka qaraadhahay bir hawsha haddaanay suuro gelayn ma suuro gelayso odhanaya wixii dee talaa laga tashanaya ama arrinka loo keeno ama waxaa saa u suurageli maayaan ha waa sidaa been kuu sheegi maayo muuse aan run yaqaan been kuuma sheegayo run buu kuu sheegaya iga tag wa isdilaynaa hadduu doono ya run buu kuu sheegaya been kuuma sheegayo wuxuu ballan qaadana ka bixi maayo waa fulinaya musuqa waa necabyahay wuu dhalaalaa haddii wax isdhaafdhaafa ay la kulmaan ama loola yimaado wuu dhalaalaa waa marka ay waxyaaba ay ugu tilmaamaan waa kibir been waa war nin muraad doonaya inuu danaysto markuu ka hor yimaaday oranayaan hebel waa gacantuu sayraa muuse gacantuu sayraya ay dhaqaaqaya waa musuq nacayb iyo cadaalad darre nacayb marka waxa aan anigu qabaa inuu wax weyn ka qaban karo musuqa iyo cadaalad darrada labadaas soo isweheliyaan macnaha hadda anigu waxyaaba aan ka sheegayo muuse biix cabdi isku xisbi baa tihiin waa musharaxaagii oo ugama jeedo laakiin shaksiyan anigu sidaan ilaahay dartii u aqaan baan wax uga sheegay waxay soomaalidu tidhahdaa inankaagu habeen buu hiil kaaga bahanyo maalinta hooyadii guursanaysa buu hiil kaaga bahan cid mar kale hiil kaaga baahna goobanimadana marun bay hiil nooga baahan tahay adoo marka madaxweyne aynu dooranayno ayuuba hiil nooga baahan tahay waxaa la yidhaha aqoonna hanagu cadaabin eexna nagaga tegin aniga oo aan eexanaynin aniga oo aan muxuu ahaa faaninayn cadkeedina aan saaraynin waxa wanaag aanu leeyana aan saaraynin oo mid waliba aniga dee xun tahay ila isagu muu odhan aanu afkayga soo baxaysaa laakiin wixii la isweydiinaya barkhaatigii ee qof laga sheegaya in cadkeedin la saarana maaha wax wanaag oo aanu lahayn la saarana maaha anigu muuse dhowr waxbaan u aqaanaa muuse waxaan u aqaanaa nin geesiya anoon faaninay nin geesiyaan u aqaana nin wadaniyaan u aqaana nin ku dhaclaan u aqaana nin hal adag baan u aqaana nin halgamaayaan u aqaana halgan kala door weyn buu ku lahaa isaga iyo rag fara badan oo kale oo la mida oy saaxiib yihiin way hadda ku lahaa halganka door badan laakiin maanta kaynu xusayna aynu wax ka sheegayna hadda waa muuse laba midabka deerada laba doobta weerarida daada 10 gu wada jiray daymada aan kala dhicin markay doorashada tahay du wanaagsanaantiyo hidihiyo dirkooda midna geel ku dari kara midna looga daaya marka dawladda sheekada hoos loogu daadego xaladoo ku rimaya markay qoorideeyada iyo dil sheegu baahdeen hadda dawladnimadii danta guudna ka mudan kuma darajada gad
markaa tiiba maanta ina taagan tii markaa kaanaanu gaala ku darsanaa dee waa muuse waa hagaage murashax muuse biixi cabdi waayo aragnimo intee leeg ayuu u leeyahay hogaaminta dalkan iyo dadkiisaba muuse waxaan odhan karaa waa geesi qofka taariikhdiisa doonaya halkaa ka qaatay inuu geesi yahay muuse caqabadihii ugu adkaa ee ugu dhibaatada badnaa ee ugu loolanka adkaa ee ugu hawsha badnaa baa ka qabsaday tartanka xusbiga sidaad u ogtahayba yacni waa nin la soo miiray oo lasoo dharka lama maroojiyo ruux la maroojiyey weeyaan nin kale intuu iska tuuru iskaga tegi la sababtoo xataa wuxuu uga baahan yahay dee ma jiro laakiin dalka ayaa u baahan tartanka xisbiga kulmiye murashaxnimadiisa ka dhacay xisbi kale kama dhicin cabdiraxmaan cire cidi lamay tartamin faysal cidi lamay tartamin tartan adag oo xisbiga labada xisbiga kale dhexdooda ka dhaco murashaxa madaxweyne runtii ma uu jiro laakiin kulmiye tartan adag oo waliba daqiiqada aan hayne sanada socday baa runtii waa waayo aragnimo waa khibrad waa experience waa wax weyn waa yacni arrin kulmiye u dheer yahay khilaafaadka saddexda xisbiba gudahooda yimid kulmiye waxaan odhan karaa xisbiga ugu ballaaran saddexda xisbiba wey tartanka gudihiisa khilaafaadka gudihiisa waayaha gudihiisa soo maray marka laga taga xisbinimadiisa inta uu axmed madaxweynaha ahaabaaba xisbigaa kulmiye inta gudihiisa taallay ya iyo yacni waxyaabaha gudihiisa ka dhacee tartan ahaa aan la malayn karin intaasoo dhan buu kulmiye ka soo dabaashay marka runtii kulmiye waxaan odhan karaa waa xisbi tajribo adag waayo aragnimo adag soo maray muuse oo maanta murashaxiisa hina nin hawlo adag iyo badweyn ka soo dabaasho final taagan wey marka runtii waayaha uu soo maray wuu ka adag yahay waanu ka culus yahay waayaha labada murashaxa kale ay soo mareenba waxaa kaloo odhan karaa wuu uga adkaysi badan yahay waayaha adagee soo maray sabir badanoo muuse waayo adagoo aan odhan kara labada xisbiye kaleba hadday soo maraan lagaba yaaba inaanay mataqaanaa xaaladaha qaarkood aanay jirin magaalahaan xisbiga waddan imika cusub waayaha xisbiga kulmiye gudihiisa soo maray hadduu soo mari lahaa siduu uga dabaalan lahaa allahu aclam waxaanu garan karaa xisbiga waddani kursiga lagu tartamay kursiga murashaxa madaxweyne ku-xigeen mu aha waynu ognahay inta dee waddani ka gaadhay kulmiye halka lagu tartamayey tioka ku-xigeenkana lagu tartamay oo cabdiraxmaan saylic uu kula tartamayey wasiirka xagla toosiye kursiga ugu culuse lagu tartamay ka murashaxuu ahaa kulmiye runtii dee sida kulmiye uga gudbayna dhaawacyadiisa u dhayey ee uga kabtayna waynu runtii arkayna wuu ka kabtay baan odhan karaa kulmiye oo waayaha adkaa wuu ka soo dabaashay muusena sabir buu u yeeshay marka runtii waxaan arkaa markaad axsaabta na eegto sabirka muuse biixi cabdi oo murashax madaxweyne xisbiga kulmiye uu u soo maray inuu halkaa ku soo gaadho murashaxnimada xisbiga kulmiye ku soo gaadha way ka adag tahay way ka khibrad badan tahay way ka waaya adag tahay labada xisbiye kaleba markii xisbiyadanu yimaadeen iyo doorku ka qaatay iyo waxyaabihii la soo kulmay waxaan u arkay nin aada iyo aada xayin noqday oo u soo samray waxyaaba fara badan oo kala kulmay xitaa xisbiga kulmiye dhexdiisa waagii dhaweytaan goostay inaan muuse taageero waxaan ku yidhi waxyaabaan kugu taageera waxa weeye dulqaadkaaga faraha badan ead u soo yeelatay waxyaabihii kaala kulmay xitaa kulmiye dhexdiisa shalayta muuse markii halkan lagula tartamayey anigu isbahaysigii baan ahaa dadkii kasoo horjeeda baan ahaa dagaalkii ugu adkaa baa na dhex mariyaan muuse inuu geesi yahay oo fariid yahay weliba nin aarsada aanu ahayn anigu dadkii ka codeeyey codkooda u diiday baan ahaa weliba anigoo ballan hore ugu qaaday ninaan mujaahid ahayn ninaan fartayda iga qaadin haddana muuse oona diiday waxyaabaha qualitigan ku arkay bay ka mid tahay inaanu ahayn qof uurkiisu xumaato badan dadka ugu haya ama qofka ay isku dhaceen dee raba inuu ka aargoosto oo qof aada u niyad maartay uurkiisu nadiifu yahay intaa dagaalkuna dhex marayeen ka codeynayeen kaambeynka kaga jiray dadku intaa uu sheegeen waxaa lahaa yurub kaambeyn bay kaaga jirtaa muuse wax dareen anigii muuqaadsiinin anigoo la dagaalamaya imuu odhan mujaahideed baad ahayd imuu odhan dadkaanaa kuugu dhow imuu odhan maxaad waxii siin weyday igula munu caloobin intii dadku ay wax iiga sheegayeen haddana markuu arka anigoo kasoo horjeeda yurub un baan ahaa muuse de waa nin bisil maanta waa nin siyaasiyan bisil weeyaan waxaasoo turaanturooyina wuxuu ka qaaday bisayl siyaasi ah waxa weeyaan habnooleedka aynu u nool nahay muuse mar walba wuxuu ahaa nin ku xidhan
maa dadku eg aqoontu waa inay tahay mid degaankaaga iyo dhaqankaaga kugu hogaamisa inay tahay mar walba wuxuu ahaa nin ku ataaj garaysan marka taas waa ta keenaysa fahamka iyo garashada uu leeyahay habka dhaqandhaqaalay bulshadu u dhisan tahay waa ta keenaysa adkaysi inuu u yeesho wax badan oo markaa dhacayey wax badan oo iska horimaad ah wax badan oo adkaysiya oo u fadhiisanayay waa ta suurto gelinaysaa run ahaantii waan ku qiiroonayaa taariikhdiisa marka dadka waxaan odhan lahaa anigu hees yar baan u sameeyo heestaasaan kaga hadlay muuse wuxuu yahay marka waxaan idhi nin mujaahidoo maalmihii xumaan nafta meel ku xidhay cadowgii wax maraykii muquuniyey madfa cololayey maaraha dhex galay hadduu mawlihii maantana ku simay wuxuu maagan yahay qarannimada mudan inuu meel marshee ha ka midho dhashee muuse u coday hees la yidhaha anu sameeyo kaambeenka ugu talagalay in la galo markaa muuse waa ninkaa mujaahidka ahee cumaamadda cas madaxa ku duuban ee raamaha leh aad aragtay isha ka muuqata markaa ninkii caqlili sawirkiisa muuse markuu halkaa ka arko uma malaynaya nin kariim timaa marsaday inuu uga codaynayo soomaalidu waxay tidhaahdaa jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay ayay dadku idhaahdaan halkan waxaa soo gelaysaa jabhad ma la noqotay jabhad ma la noqotayna macnaheedu wax kale ma aha waxaana ay dadku iminka halkan suuqa joogaa odhanayaan waanu isnaqaanaa hebel waa in yaroo ay bun ka cabayeen leek casal iyo hudhaal iyo ama wada qayleen kuwaasaaba ugu dheero 4 saacadood fadhiya laakiin tii jabhad ma la noqotay macnaheedu waxa weeye 6 subaxnimo laga bilaabo ilaa 6 subaxnimo ee berri ma wada joogteen dabeedna wax aliyaala wax qarsooni ma jiraan qofkan noloshiisa iyo siduu uu la dhaqmayo siduu u nool yahay siduu u dhowrsoon yahay siduu wax u cuno siduu u seexdo siduu xilalka ururnimo ee la soo gudboonaaday u hanto waxaasoo dhan baad baranaysaa waataan kuu sheegayo dee halgankiina kamuu tegin oo nin dibadaha warwareego oo baxoo soo noqdo mu ahayn markii dalkan la soo galayna qof baxa oo soo noqdo oo dhoofa mu ahayn sidii buu u joogaa qof hadduu dul leeyahay oo adkaysi u leeyahay ujeeddana leeyaho meelu u socdo wax kasta oo leexinaya wuu dul qaadanayaa iyo wax kasta oo diversion oo ku dhaca iyo wax kasta oo ka hor yimaadaba kolkuuna qof ujeeddo lahayn iyo dariiq uu socdo markuuna lahayn waa markan uu lehleexanaya qofku laakiin ninku markuu meel u socdo ujeeddo cadna uu leeyahay himilana uu leeyahay aragti fogna uu leeyahay meeshuu u socdo ilaa uu gaarayo wax kasta oo hantaaqo ku dhacaba adkaysi buu kaga gudbayaa taasi wata u suurto gelisay in maanta musharax madaxweyne u taagnaado xisbiga kulmiye loolan adag baa soo dhacay loolan siyaasiyaa soo dhacay loolan xisbiga gudihiisa dee inta la soo mariyey labadaa midna lama soo marin bal haddee anigu waxaan ku doortay 2 shay oo qura asabir wataxamul dulqaad iyo sabir ayaa ninkaa ku doortay ninkaa waxaan filayaa sinaan iyo cadaalad inuu wax ku maamulo inaguna sinaan iyo cadaalad baynu u baahan ruuxa calafkiisa iyo arsaaqdiisa rabbi baa haya oo wuxuu la kulmayaa fii yaddi raxmaan laakiin waxaan anigu ku kalsoonahay ninkaas sinaan iyo cadaalad inuu wax ku maamulayo hadday sinaan iyo cadaalad timaadana waxaa imanaysa nabadgelyo wixii kale nabadgelyo ka dambeeyaana dee gacanta rabbi buu inoogu jiraa laakiin waxaan filayaa sinaan iyo cadaalad inuu waddanka ku maamuli karo uunu hanan karo waddanka ninkaas daamahaa leh ee tacliin dadaalkeedii lahaa ee lahaa in isku keenidda bulshada ee lahaa hab hogaamiye lahaa dee wuu qalmaa inuu sharaxo inuu noqdo madaxweynena waxaan filayaa hadduu ilaahay siiyo inuu xilkaa ka soo bixi doono wuu leeyahay aragtida iyo bisaylka iyo inta usoo kaaca inta doore marka la qiyaasada inta doore usoo kaaca kufay waxaan ku qiimeynaya inuu leeyahay bisaylka inuu hogaamin kara of course waxaa lagu qiimeeyaa waxa weeyaan muxuu soo qabtay muxuu intuu u danlaaway danta qaranka muxuu intuu u dadaalay intuu wax u qabtay marka isagu de wuxuu ka mid yahay raggii dhiigoodii naftooda waa qoray
laakiin anigu aqoonteedii intaan muuse isugu dhownahay waa nin aan isleeyahay waddankan wuu qaban karaya marka wuu u qalmaa. maxaa laga filayaa inuu wax ka qabto murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ee ay bulshadu ku danaynaysaa in ay doortaan? waxa ugu badanee dumarku qiimeynayaan maasku baa ka mid ah intayada ama la shaqaysay ama siyaasad la wadaagtayna waxay ku dooranayaan hogaamintiisa, go-aan qaadashadiisa, dadnimadiisa. waxaa dee taa noo dheer inuu yahay qof dalkan una soo dhibaatooday maantana u damqanaya dhibaato aan loogana baqanaynin inuu wax xumaato ama dhibaato ah wadankan gaarsiiyo ama waxaan shacabka reer Soomaaliland ku raalli ahayn way cid walba uga jecel baday inaanu waxyaabaha ay dumarku ka dooranayaan waxa kamid ah nabadoodaas ay reebaan ma doonayeen in dee nabadoodan yare haystaan ay ka kharkhasho. muuse kale waa qof ku aamini karaya looga baqan maayo muuse inuu si yaro fudud dee decision u qaato way dee dhibaatada ay xanuunku u soo maray wuu ogyahay in dalka kale. Soomaalidu waxay tiraahdaa qofka bini'aadanka waxaa jira 4 window buu leeyahay afar daaqadood buu leeyahay. afartaa daaqadood mid waxaa la yidhaahaa qofku asagun baa yaqaana, midna dadkaa ku yaqaana, midna waa afarta daaqadood buugti, midna adiguna waad ku taqaanaa, dadkuna way kugu yaqaanaan oo cid walba daaqadda way taqaanaa. waxaa jirtaa daaqadda afraad oo aan cidna aqoon. daaqadda afraad waxay weynaataa ama ballaarataa wakhtiyada ay qofka ama xilka la saaro ama dagaaladu dhacaan ama khataruhu yimaadaan. maad maqal dagaalkii dhacay hebelna maar buu ka dhigay oo dahab ahaa, hebel maar ahaana dahab buu ka dhigay. soo maad maqal waa sidaa weeye. dadku marka dhibaatooyinku dhacaan qaarna waxay noqdaan sababto waa maxay unknown windowda waxaa daaqadda aan la aqoon ayaa furanta oo ballaaranta qofkii dabad nin kale ayuu noqdaa. waxaan rumaysnay muuse inuu daaqaddaa leeyahay daaqaddaas ballaaran muuto xilkasnimada ah. muuse mid aad iyo aad baaban maxaan ku dhahday aan horta maxaan ku usii maxaan ku dhahday calaamadinaya. midaan calaamadinaya waxa weeye muuse inuu yahay qof dhaqanka Soomaaliga iyo Somalilandba aad iyo aad ugu fiican, aad iyo aad ugu fiican weeyaan. qofku hadduu dhaqanka ku fiican yahayna dhammaan waxyaabaha horumarinaya haweenkana waxaan u malaynayaa inay miiskiisa ka buuxsami doonaan oo ay aad u saarnaan doonaan. haweenkana waxaan filayaa oo aad iyo aad maxaan ku dhahday aan uga dheregsanahay. dadka qaar baa yiraahdaa muuse haweenka u jajabnaan maayo. aan waxaan aaminsanahay muuse inuu noqon doono qofka ugu jajabnaan, ugu dhow ee ugu jajaban ee ugu waxqabadka badan dhinaca maxaan ku dhahdaa horumarta haweenka inuu noqon doono. saamiga ay xaq u leeyihiinna inuu ka siin doono dawladdiisa uu soo dhisi doono isagoo waliba u eegaya cidda uu xil u dhiibayo kartidiisa, aqoontiisa iyo hufnaantiisa isagoo u eegaya oo hufnaantu ay tahay number 1. qof dumara oo wanaagsan oo dhowrsan oo aqoon leh oo shaqada qabanaysana garanaya u malayn maayo muuse inuu u diidi doono inay dawladdiisa ka mid noqoto iyo inay maamulkiisa ka mid noqoto iyo inay la shaqayso midnaba. maantaba dadka hareeraha iyo ugu badan ee muuse maxaan ku u kaambeyn garanaya waxa weeye waa haween. haddii aan dib ugu noqdo markii aan maqlay imika anigu waxa la yidhi muuse biixi wuxuu ka mid yahay dadka murashax loo dooranay u sharaxan hogaaminta dalka. aad baan u jeclaysay waan ku farxay. waxaan ugu farxay qof ka taqaano ee isleedahay xilka uu ka soo bixi karaa kalsooni gaaraad ku qabtaa. waxaan u arkaa runtii nin oo ama aan ka sheekaysanay mashaakilka dalkeena yaala oo ay ka mid tahay 3 qodob ay ugu weyn yihiin. 3 qodob oo ah qabyaaladii oo heer ka socoto ama ay gaarsiisan tahay cid walba ay arki karayso, mushkiladda qaadka oo la og yahay dhaqaalihii dalka sidoo u burburay, dadkeennii oo camal la'aantu ay ku badan tahay, iyo waddankeennii oo waxba ka qabsanaynin oo dul fadhina oo dhulkii oo khayraadka badda aynaan wax ka qabsanaynin, sarwadii baddii iyo kalluunkii, buurihii aynaan waxba ka qabsanaynin, caadintii,
beerihii aynaan falanayn waa saddex arrimood oo mushkiladood oo caqabad oo waddanka Soomaaliland hortaagan mashaakilka Soomaaliya si aan u wadaado waa saddexdaas ugu weyn aan ilaahdo wuxuu ka mid yahay dadka aan isleeyahay haddii uu soo baxo wax uu ka qaban karo waxa sidaa u leeyahay waxa weeye waxaan arkaa nin geesiya oo ku dhiiran wixii xaq ah ee toosan anoo runtii nin culimo ah oo culimadana lagu fiican yahay dadka ammaan inay boonbooniyaan aanay ahayn laakiin wixii ninka aan ka aqaanay ama aan kalsooni ugu qabaayo arrimaha caynkaas aan idin soo sheegay laba waxyaalood oo aniga ii ah macnayiin ayaan muuse ku doortay mid waxa weeye halgankii gobonnimo doonka oo lagu jiray oo uu ahaa dee ragga hormoodka soomaadka ragga hormoodka oo maxaan ku idhaahdaa dee naftiisa u soo hibeeyey inuu shacbigiisa xoreeyo ta kale oo aniga igala sii qiimo badan xataa aada iyo aada iila qiimo badan waxaa weeye markii axmed ibraahim cigaal uu soo jeediyey inaynu furano axsaab oo ka baxno maxaan ku idhahdaa marxaladii aynu ku bays garaynaynay systemkii reeraha oo aynu ku ladhno oo ku kabno systemka la yidhaha multiparty democracy ama nidaamka xisbiyada badan raggii askarta ay soo kala halgamay way kala baxeen muuse iyo rag la mid yihiin waxay doorteen inay axsaabta ka mid noqdaan oo ay noqdaan dad civilian oo dadka kale la siman oo xisbi dhisa oo halkaa ummadda wixii horey u tareen mooyaane halkaa ay ka hogaamiyaan oo ka talaan waxaan ku arkay oo aada u qiimo weyn muuse bixi inuu yahay qof aan siyaasadda u soo gelayn inuu waddanka liqo u urursado oo corruptionka iyo waxa uu galo oo aada iyo aada arrimaha caynkaas uga damqada ayaan arkay waxaan ku arkay muuse bixi inuu yahay qof garanaya oo ay damqayso gaajada iyo shaqo la'aanta iyo tacabka dadka Soomaaliland inteeda badan haysta ayaan arkay oo damqanaya sida u damqanaya dhalinyaradu waa xoog iyo cudud muhiima oo ka tirsan qaybaha bulshada iyaga laftoodu maxay ku dooranayaan murashax muuse biixi cabdi waxyaabaan ku dooran karna waxa weeye waa hogaamiye hal adag oo hanka himiladan ummadan kaga rumayn kara anigu intaan muuse ka aqaano muuse af mishaar ma dhageysto wuxuu dhageystaa dadka ay u heltaan in la dhageysto qof walbana takhasuskiisa iyo aqoontiisa iyo khibradiisa gaar ahaaneed buu ku tixgeliyaa markay tala qaadashada iyo go-aanka ay noqotona waa hogaamiye waxa weeyaan muuse biixi waa hogaamiye halganka iyo siyaasadda ku soo bilaabay dhalinyarnimo muuse biixi waa shakhsi yaqaana ama waa hogaamiye ay u baxsan taho fahansan awoodda dhalinyarada ku jirto awoodda dhalinyarada ku jirta inuu ay mudan tahay in qaranka looga faa'iideeyo haddii talada dalka uu ku guulaysto waxaan aaminsanahay ama aan ka filaya in marxaladan Soomaaliland ay taagan tahay inaynu step forward dhaqso ah ama hore uga qaadi doono markaan uu eego hamigiisa hiigsigiisa aragtiyihiisa afkaartiisa iyo waxa ka dhex guuxay energy-ga ku jira xooga ku jira sida ay uga go'an tahay inuu isbedel taban ku sameeyo waxaanay asaasihii iyo odagii guud ee xisbiga kulmiye waxaan jecel xisbigaygu ku guulaysto tartanka doorashada iyo talada dalka marka labaad si halkaa uga sii anba qaado waxqabadka iyo horumarka aan seeska u dhigay sidaa darteed waxaan dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ugu baaqayaa inay si buuxda isu garab taagaan murashaxa jagada madaxweynaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi waxaan u arkaa inuu yahay hogaamiyihii ku munaasibka ahaa inuu sii wado hamigaygii siyaasadeed iyo himilooyinka xisbiga kulmiye hadda waa taqaanaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi